السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت أصحابتي والدينتي فاميلكيga ehelkeyga oo dhan meel walba aad ka joogtaa dunyada insha Allah bidillah caafimaadkiina waa okay insha Allah bidillah ya rabbal alamin anina caafimaadkeyga alxamdulillah rabbil alamin okay waay insha Allah bidillah haye maanta qis cusub aan wada hadda diyaar tihiin inaan u guda galno ama wash aan soo sii diyaar ma tihiin han galno marka okay qisadina maanta waxay ka sheekeynaysaa كالعادة نينا جرجري oo dhahaya maanta labadeeda gabdha la soo doontay dad akhyaar oo muxtaramiin ayaa soo doonteen laba wiil oo labadooda walaala ah ayaa soo doonteen gabdhaha walaalaheegana waa laba walaalo soo laba walaal oo laba walaal kala guursanayo ayay noqdeen ilaahay ay calaf iskaga daray waan siinay way isguursadeen ma sha Allah labadii walaal labadeeda gabdha sidii ay ku baxeen adiga sidii loo joogay nasiibkii aan naftirkeyga wax iskee soo daray gabar oo ay gal dhalatay inaan guursado gabadhii ay gal dhalatay inaan guursado marka aan la doono oo macnaa oo gabar oo akhlaaqeeda fiican oo edeb leh oo macnaa maanta iska soo agdhawaatiin ay aad u wanaagsan tahay ay familka ehelkeyga u waaniyeen so waxaan dhahay okay ma sha Allah dib male wax fiican waa arintaas arrin xumo hadaba iyaga ay soo check gareyseen oo soo fiirseen oo dheeseen gabadha akhlaaqdeeda iyo usluubteeda way fiican tahay qoro socda wax ma ka qawaaniga ileen arbaha shirkadna arbaha ka dhacday soo arbaha ileen marka ma qabaan especially magaalada oo hadda aan ka sheekeynayo absolutely ma qabaan inay gabadha oo lisbarto shukaansi dhexdooda dhaco waqti isla socdaan isla sheekeystaan isla baxaan isla soo noqdaan absolutely ma jiro hal waxay qabaan oo la dhahayo nadra sharciyada lagu sheegayna waxa waaye hal mar oo guriga lagu balaminayo oo xaafadan astago oo si sharaf leh oo family am wax la socdo asiga iyada markaas inaa listus aragtidiisa oo lagu sheegay marka inaas arkayo wajigeeda qaabkeeda lugaheeda waxeedaas arkayo macnaha lugaheedaas arkayo yani joogeeda inay caafimaadkeeda qabto inay meel ay la-een aan ka wadaa ma aha iyadoo ay asturan tahay wajiga bas kaliya loo soo furaa sidii osku arko wajigeeda indhaheeda sankeeda afkeeda macnaha so iyo dhirarkeeda socodkeeda macnaha waxaas dhanas arkaa anyways xoogaa way soo fadhiisanay ama cabitaanay soo dhigaysaa sidii nadra sharciyeed carabta tiyaa marka dhacayso taas waay ama aqoon oo maanta la dhahayo gaalada iska dhaaf waxay qabaan girlfriend iyo boyfriend yani waxaa laga yaabaa 5 sano ama 6 sano inay isla socdaan oo 4 ama 3 ama 2 isku dhalaano kadib leen loo hayaa mi guursanaysaa inay markaas dhacdo oo guursana yani sheekaas ma jirto marka so anyways arintii gabadhii oo marka oo labada wiil oo labada gabdho oo walaalihiisa oo guursadeen gabadh walaashooda ah markaas oo guursaday aadayga aroos weyn oo dhigay sadhay marka aroos weyn oo dhigay oo dhahayo yani almost oo ka galay xarash ahaan lacagtooda ah 120,000 aday wax gaarayo ilaa 40,000 dollar ama adin oo iska dhaqan oo ahay laakiin familka oo kale saas dham aha iska noolyihiin noloshooda ma sha Allah way fiican tahay laakiin ma lahaay dad oo lacagtaas ama waxaas leh waay asi laakiin waa iska dhaqnaayo xoogaa fiican iska hay aroos weyn oo dhigay kharash badan oo geliyay arooskii aday gabadhii marka maalinta uu ku sheekada marka haday bilaabay storyada saxdeeda marka storyada saxdeeda waxay leedahay gabadhii oo isoo guursadeen ayay wax ku heshiinayaan inay caruur isku dhalin la muddo sanadkaasid inay wada raaxaystaan caruur buuq dawsho madax xanuun dhan ma rabno way isku tifaaqeen macnaha way ku wada heshiiyeen macnaha labadoodba hal hadal ay wada noqdeen arrintaas inay waxay dhalin ilaa sanad kadib aydii asigii jacayl kadib la simaana aroos kadib la simaana anyway Soomaali web ku maamaade jacaylka aroos kadib la simaada marka jacaylkii romancy-nimadii macnaha ma sha Allah waa asiga aydana ma sha Allah waa isfahmeen waa isjeclaadeen waa arintooda ma sha Allah dhagdhaga ahayd heshiiskoodana sidooda waayo ilaa sanad laga gaarayo macnaha inay nolosha adduunyada ay ku raaxaystaan dhalinyarnimadooda intii oday iyo hooyo iyo aabba ay noqonin heshiiskooda sidiis ay marka adii maalmaha maalin ka mid ah
ayaa familkooda soo booqatay gurigooda, familkeeda imaaday. Marka walaasheeda ka weynaa ku jirto, marka iyadana caruur leh, caruur ay leedahay walaasheeda ka weyn. waxay arkaysaa cizka ama nolosha barwaaqada ay ku jirto. walaasheeda ay aragtay guriga alaabta u taala, ciida dharkeeda, guriga habeesan yahay, guriga ayaga iskale, odayga ninkeeda iskale tabcan. wax walba wax ka maqan male guriga. fadhi uu qaalisan yaalo, jiifka uu qaalisan, tv wax walba guriga yaalo perfect, wax qaali ah oo qiimo ku fadhiyo. iyada naftirka dahabkeeda, dahabka ay labisanta, faraantiga, almaaska, maasha allah. yani wixii may uquuri weysa kala sheeg. almuhim hadalooyin ay dhahday gabadhii. fiima bacdaha, maalintaas kadib gabadhaaseeti sidii isku bedeshay ay ahayd. maxay dhahday waay marka guriga macnaha markii la dhahay yani binaadamka wax ma isku quunaan. walaasheeda waa fiiriyaa isku, yani walaasheeda waa min laxmigeeda damigeeda, waa isku aab isku hooyo. ayaa marka gabadhii walaasheeda waxay dhehaysaa harta ku ciska iyo farxadan waxaan ku jirtid hadda ujeedid, yani maxaad malaynaa saan isu soconaya, saan isu soconaa malaynaysaa waay. maalintii uurad qaadid ama cunugan u dhalaa dhahdid, maalintaasay kugu dambeysa. ada naftarkaaga is ilow, waa ku ilowaa ninkan. wiil hadduu dhashid iska badhaaf, khalaas waay. adiga maalintaasay nolosha ku ogtahay, sanad le noolaayaysaa waa macnihiisa. hadalahaas isku dhahayay asiga wuxuu ka waday hal sano le nolosha dhan ayaad arkaysaa. kadib boyasa ka noqonaysaa gurigaas shaqaale caadiya ka noqonaysaa. wiilkaasaad dhashatay koriskiisa, waxaanid barwaaqadan hadaad ku jirtid guriga, camiraadaas ku camiran yahay, dahabka waxaan dhan ma jiraayo dhow, baxas noqonaa, ebras noqonaa. noloshaa meesha ku ogtahay waa halkaas sano le waay. ha ka yeelin maalintis ilmaan dhaleyna, caruuran dhaleyna waxaad isku keeno, ha ka yeelin, absolutely ha ka yeelin. hadalkaa ku adkeyso. caruur ma rabni usoo joogso ninkan, caruur ma rabni usoo joogso, ma barabni sano walaa 10 sano walaa 100 sano ma dhaleyna, ma barabna caruur usoo joogso. gabadhii madaxa loo buuxiyey way ku qanacday tamaaman way ku qanacday arrintaas. cunug ilmo ma rabno, bas ilmo ma rabno, ilmo dhaleyno absolutely khalaas. adii martidii wixii baxday arrinteed ninkan oo dareema maantas familka imaadeen oo walaashada abaayada soo ziyaaratay iyo wixii kabacdi xaaskiisa looguma dambeynin. weji bedelo, wejigeeda ma fiicno, sidii farxaddii iyo baashaalkii iyo fankii aan haysani noomar ma jiro. farxaddii iyo baashaalkii iyo fankii, qosolkii iyo sidii jaceylkii dhan maba jiro. gabadhii oo bedelan tahay. arrintii si sheeko isku soo qaadnay. caruurta sheekada soo qaaday oo dhahay qoftan waxay soo joogsatay, ma maqli karib arrintaas, iga xir, absolutely ha isoo qaadin. caruur sheekada dhan ha isoo qaadin, ma maqli karib, no more. sheekada dhan iga xir, iska dhaaf inaan isku dhalmo. sheekada dhan ba iga xir, iseexu jira, inta kasoo gal qancis waa daali oo dhahay. maya la soo joogsatay. caruur baad ii taagan tahay, qof kale iska guurso, ani iskee fur. ani caruur kuma dhalaayi. haddaad soo musir tahayna oo dhehis waa go-aansa ani caruuraa rabaa, qof kale iska guurso, ani iskee fur. inta ka taraagaray wax walba u sheeg, qancis. nin caqli lehna u ahay maasha allah, asiga oo degan oo ah. laakiin stiil wuxuu leeyahay yaa bint alxalaal, yani adduunkaneeti farxadiisa iyo nolosheeda saad u arkaysid, barwaaqadeeda, farxadeeda wax oo buuxinaya ama oo kala kicinaya arkaysid waa caruurta. yani ziinat alxayaat addunya waay. so maxaa ku diidan tahay? maya taraay kareynaya, axaawinin may malaga yaabo inuu wax ku dhalno. naga xirib sheekadaas please. marka sheekada wuxuu gaaray nas markii fariisayga baxday oo taraay garay oo kari waayey. markaas arkay wuxuu is dhahay aabaheeda aan u sheegaa, iigaa soo qarninayaan. aabaheeda u sheegay ficlan saas may ku dhaho, saas dhahay maka filihin oo dhahay arrinta adoo aabah la kulmidan. aabihii markii arrintii ula tagay, aabihii hadal aan ka filinin oo dhahays dhahay. maxaa waay marka hadalka ku filinin oo aabah soo dhahay? aabo dhahay adeer usu yaas dabcan hooyo gabadha aabaheeda waayo. markaas dhahay adeer, gabadhaada saanay taagan tahay, yani please la hadal, inay adag warkaa maqashaa laga yaabaa. odaygii waxa soo jawaabi, furitaan may dalbataha, iska fur.
waa la yaabi oo dhahay adeer aad masaas dhoosid ha iska fur abtigeeda la hadal adeerkeeda la hadal kulligood waxaa la yaabay isdhahay dan isku hadal waay iska fur ay taagiin laa xawla walaa quwata illaa billah saas mi gabadhii usoo naq mar labaad taraay garee male nag alor famil dhan heshiiyeen waa isdhahay marka khalaasaan dhahay gabar bint alxalaal khalaas oo ku furaa maxkamadii wixii markaan tagna isdhahay furitaankii aabaheeda la socdo diyaar waay markhaatiga aabaheeda markhaatiga ah furitaankii iyo abtigeeda khalaas oo dhahay haas maadaama u dhammaatay waa iska furaa maxaas meena marka qaadagii marka kan oo go-aanka maxkamadda jooga oo dhahay khalaas waay furitaanka warqadii wixii dhan dhameen lahay garsooraha wuxuu dhahay okay ninka xaq wuxuu leeyahay sharci qabaan dadkaas xaq wuxuu leeyahay ina maharkii loo celiyo maadaama agteeda ka imaadi oo inay dhan go-aan gaarteen fur kam yani ilma dhal makuu dhalaay heshiiskooda koo macnaa ilma dhalaay horta heshiis maba soo galaay makuu dhalaay so maadaama oo saas ay arrinta ay taagan tahay waxaad samaysiin maharka celinaysiin asoo soo joogsada wuxuu dhahay waa ogahay duruuftooda iyo haddana waxaa isla markii nin caqli lehna uu ahayo macnaa maasha allah because wuxuu ogyahay haddana labada gabdhi mayrabiyaas joogsadas mahar marabiyaa laysoo celin sababta because labada gabdho asal dhashteen walaalihiisa wiilashiyaa qabaan so marka haddaad isdhoo mahra laysoo celiyo beri waxay isku bedelay sheekada aarsashaal iyo gabdhihii walaalaheega haddii la dhaho hataa aabihiina ogahay lacag mahaayo so meherkii waa lasoo celiyaa haddii la dhaho so waxay u dhammaan heesaa inay wiilashiisas weydi wiilashii inay haddana walaalaheega gabdhaha walaalaheegaas qabaa ay qabaan wiilashii so okay wiilashii gabdhihii walaalaheega qabaan arrinta waxay usoo dhammaan heesaa haddana gabdhihii walaalaheega inay soo galaan arrinta buuq iyo wax isku bedasho gabdhihii walaalaheedan ani iyo maaqdan lacagtiidana loo haye nimankeena wax mahayaan lacag mahayaan so waa soo wareegaysaa sidii sharaf xuman oo ku dhammaanaysaa gabadhan an waa jeclahay xumaan wax maku furoy bas keliya waa caruur maku dhalaay iyo joogsatay ana caruura rabaa so marka waxaan dhahay lacag marabi go-aankeyga waay lacag meher haliisoo celin maharka dhan wax haliisoo celin ana raali aan ku okay waay gabar furitaanka garsoorow khalaas iska fur arrinta warqadooyinka waxaaga dhameyso ani gabadhan no more bis waay maharna ma karay waxna ma karay garabkeeda la galo sidii inay smart side because hadis aqligaas isticmaalina walaalihiis wixiisa meesha ku baabaya so okay markii arrintii meesha furitaankii dhacday asigii marka khalaas furitaan in maskaxdiis yani aroos iyo qof kale inas aroos ama waxa maskaxdiis inuu ka saaray adiga wuxuu noqday mutatawwic macnaa masaajidka shanta waqti isku dukanaya as dhalinyaro wax ka bartay oo iyagana multazamiin masaajid kale ku xiran oo ka baxeenin maasha allah diintii oo diin faafis iyo wax isbaritaan diintana isku dhaafsiyaan wixii ay ka saayeen qof kale yani group way meesha isku xirtay odayweena meesha ku jira marka nin oo da ku jiro meesha so odaygii isbarteen dadkii dhan waa isbartay hal gacan ay wada noqdeen oo wax isku faa'iideeyahay diinta isku sharxaayo sidii oo ku faafi lahaay diinta sidii macnaha maasha allah oo saa'id isku fahansan isku naxariisanayo wax isbaraayo lillahi fillah isku jeclaadeen ay kamid tahay odayga da-da ahay marka maalin kamid hal maray waayeen ninkan waa waxay astaa qofkaasana maqana groupkeena sideena kale oo keenahay mid naga maqan ma jiro ilaa odaygaas maqan maxaa ku dhacay talo aan raadin adresskiisa wixii raadeen gurigiisa ugu tageen albaabkii markii la garaac gabadhiisa ayaa albaabka soo joogsatay yaa waa dhahday anaga waa dhaheen heblo gurigiisa maahino ha gurigiisa waay odayga wuxoogaa waa iska xanuunsan daas waa la wadaan biraas u imaanay masaajidka waay إن شاء الله وإيمان دونا إلى حافظ ما نركز واحد كسر أكراس ده حديث واحد دعوة إسبدلات أمو حجره بليز نمبر كي يكون قرأ الباب جالس يكسوه لوسه طبعا عيب والباب كنا فرطان وجي كذا الأركاي سو مركا واحد هذا أوكي نمبر كي يكون سيناس ده واحد كسر أكر بليز ده إن وسوي أكرتا واحد كستو بعتيد أمو أدي أرنتا إسبدل شام أضي حنوكو زايد أمو حد دعب إله ما كسر أوكي نمبر كي يسوق قري maalmaha kasoo wareegta dhahay masaajidka stiil mimaanin odayga arrintii ku zaa'id ileen waa isoo wacday saddex loo bar saddex bar marka kasoo wareegatay gabadhii ay soo wacday oo dheheyso please mana kaalmeyn kartaa odayga xaaladiisa waa sii xumaatay
waa soo carareys dhahay odaygiyaa marka kasoo gaari waa wadna isbitaalkaan geeni daawadii wixii isbitaalkiisa isu jiif oday tacbaan is dhaqday waa sii tacbaani odaygiyaa marka dhahay igaarkeygiyo qof oo diinta saa multazim u ah sidaada oo kale ama qof fiican oo dheys qofkaana kalsoon ka qabo qof fiican waay ii soo raadi oo gabadheedan ku darsado aniga adduunyada ma ogi meeqa beri kalaa noolaa meeq sac kale ay dhiman ma sheegi kari gabadhan kaligeeda adduunka ka qabaa waxaan rabaa qof fiican inaan siiyo ku daro ama mustaqbalkeeda at least qabrigeyga maskaxda inuu iyo degan qabriga inaan galo oo gabadheedana meel inoo ku hubo macnaa aan ka tago adduunkadan okay asdhahay ibshir anaa kusoo hagaajinayo waxaas arrimahaas anaa galay ada ilaa caafimaada ku siiyo sidii marka aabihiisa u sheegay wiilkii wuxuu dhahay aaboo dhahay arrintaasaan la kulmay saasaan la kulmin oday ah oo masaajidkaas kulmayni oo masaajidka gruubku ahaan jirnay oo diintii wax isku wada jeclaani oo isku faa'iiday jirnay ayaa saa sheekadaas la imaaday in adeerkeena ka waran wiil heblow cabdullaahi iyo heblow ka waranna oo gabadhaas aan ku darno waxaas dhahay aabihiisa igaarkeygiio sidaad saa maartaan noloshaa ku dhamaysteed marka gabadha hadda dharkiisa isluubteeda iyo waxakeeda maasha allah ay tahay ma adiga ood guursatid saama ku noolaahay bismi gabadhiisi u furtay bismi ee adiga guursa fiiri walaa fikrad waas tahay meel leedahay gabadha yani kor tabcan ma arkin asiga laakiin so marka hadisdhahay odayga qof oo diinta iyo wax kusoo tarbiyey gabadha ay tahay so maxaa ku diidaysaa marka والله استاي رأي وفكرة دوائر تركيز مرك أبيه سو راعي استاي أضيق يمتكني أنا بدي أروح مرك إنا قرص أو قف أذكى في عم بهلاي وين سيدي قبلي على السي قبلي سيدي أنكو قرص ذي وده الحمد لله رب العالمين ما شاء الله معنا لو ويل أي دشي يجبر لو ويل هالجبر ودشي نولو شو ممكن شاكا بس كشاكينا يقف كان سامر أو جا خلاص واي أو معنا لو ويل هالجبر أو كبداس ودشي أو ذيك دي مناي أو ذيك أسو معنا تعبان كاي حنون صناعي أو مساجد كسكبرتين سمرك أرنتو كشاكينا وحود هاي يعني قريجي وحن لا يابطنا إلا يابطنات قريجي أما قبل أن خبي قريجي ذا أبايدت كوين أي الدمسي يعني أبايدت كوين أي قريجي الدمسي يعني واحد تعجب واي يعني والله ليالو يعني واحد في عن مسمين قبل داس يعني لو عرورنا إيد ويا لاذا مرة واحد دم عصد أي محبارتا عرورتا يعني عرورت مكهبارتا أيدي عرورت محنا دنا استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني ويجا بوسكا يجوجسي يحنونك يجارسيسي وعرورا يقول إيد عرور ويا لاذا يعني والله يا بنا تي أنفرنه أو أقلقة أم وركاس أي سرعة دينه إلا حد نقوليه فدسا قرب واي إذا waxay isgaarsiisay inay gorob ku noqoto oo nolosha dhan oo khalaas macnaa gurigeeda ay dumiso gacanteeda ku dumiso aqli daradeeda oo abaayadeed warkeeda ay soo maqasho soo marka taasne waa waano marka odaygan waxa isleeyahay qoftaasna waa kaas iyada naftarkeeda saasay noqotay ana alxamdulillah life fiicana ku jira gabar baariyad eedna qoftaasna waa jeclay qof baariyad eed maxumeen ayada dhahay laakiin haddana alxamdulillah ilaahay wax si warasqi qof baariya ma sha Allah iyada diinteeda wadato يعني أو اجعل احتراميسو عرورتي الروينا واكس إلهي وإيقسيي وفتاسنا ساسي نولش هذا كنا ماساتي أي كجرتا إلا روينا وذان إلا وقتها حاليا لجوغو واسك شاكيناي قروب واي قرية فلسا ولا ليالو انت تفلينا كفير صدا انت وحوالبو يعني أدويدان وحل أركيني ماله شادان كانت 24 hours وشقينو يا overtime اسكو درسة شادانك مع الovertime الشقيهو يا أخيارت شيدانك انت لو عود بليس كرا اما لسك إلالي كرا لسك إلاليو شيدانك لو شيغاي waxaas ka soo gal kara hooyadaas ka soo gal kara shaydaanku waxaas ka soo gal kara walaalahaaga oo saaxiibku ahayd oo isa soo korteen oo saaxiibnimo ku soo korteen walaaltinimada tabay dhaafti macnaha sir walba isku sheeganeyseen waa is hoos joogteen saaxiibtinimo ku darsateen dadkaas ka soo gal kara shaydaanka meel dhowas ka soo gal kara meel walba ka soo gal kara ka cuudu bilista مرب اسك إلالية إن تاسع وانا إيجاتها إن شاء الله بإذن الله أنا إنك إيش كعصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.